haweenaydii ka dambeysay dilka Najma Cabdilaahi Michael ee uu askarigu ku dilay gudaha magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. haweenaydan ayaa laga sii daayay xarunta CID-da. haweenaydan ayaa wararku sheegayaan inay sabab u ahayd in Najma uu askarigani rasaas ku furo iyadoo ku jirta gaarigeeda dhexdeeda. qoyska Najma Cabdilaahi Michael oo mudaharaad maanta ka hor dhigay xarunta CID-da ayaanu idin haynaa muuqaalkii. dhinaca kale waxaan idin haynaa hooyadeed oo markaasi goobjoog u ahayd markii uu rasaasta ku furay askarigani, iyadoo ka warantay haweenaydan CID-da laga sii daayay iyo cidda ka sii daysay. qodobadaasi iyo qodobo kale aynu barnaamijkeena maanta aynu ku dahqaadayna. ha hilmaamin inaad like saaratid gambaleel kana furatid leegtu waxay noo tahay dardar iyo dhiirigelin, adigana wax dhiba kuma hayso. YouTube-keenana subscribe saara, gambaleel kana furo, ku mahadsanid. ismahuri karohil bawada dhashiyahay quraanahay ismahuri in badan baan saysanay wixii soo naxo in naxariista oo ma kala furfuro waan waayna yaro dhalay baa gurigaan soo taagay ummadii bulshada meesha way ka buuxday. waxaa jooga ciidanka asluubta, waxaa jooga ciidan fara badan oo maqaaxiyan ku qayla. qof quray caawiyo waan waaye oo yiraahdo ka soo guriga macallin gacan ku dhigida ku jira naxariis darro ayaan bartaa ka arkay. waanu sanaabay Allah ii qabtay naxariista dadku inta ka fogaatay maan moodaynin. 3 bisha May ayay ahayd markii askari gaashaanle ah uu rasaas nool uu ku dilay Najma Cabdilaahi Michael oo ahayd haweeney ka tirsan shaqaalaha wasaaradda beeraha ee Somaliland. Najma Cabdilaahi Michael ayaa waxa ay ku dhex geeriyootay gaarigeeda oo ay markaasi saarnay. askarigan dilay Najma Cabdilaahi Michael ayaa la sheegay in la soo adeegsaday oo ay soo adeegsatay haweeney ay qaraabo yihiin oo ay Najma Cabdilaahi Michael ay istagaaleen isbuucyo ka hor, sida ay sheegtay Najma hooyadeed oo arrinkaasi markii gabadheeda askarigani uu rasaasta ku furiyay goobjoog ahayd. xogta iyo eedeynahana u jeedisay nin jooga haystana xarunta CID-da. hooyada Najma Cabdilaahi Michael waxay sheegtay in uu isoo diyaar garoobay oo ugu soo talagalay in uu dilo Najma hooyadeed Najma Cabdilaahi Michael ayaa sheegtay hooyadeed in haweenaydii soo maleegtay qorshaha dilka xabsiga loo taxaabay isla maalinkii dilku dhacay. balse Najma hooyadeed ayaa sheegtay in la sii daayay oo sarkaal ay qaraabo dhow ay yihiin oo CID-da jooga uu sii daayay haweenaydii soo maleegtay dilkan lagu dilay Najma. qoyska Najma Cabdilaahi Michael ayaa maanta mudaharaad ka hor dhigay xarunta CID-da iyagoo ka cabanaya sababta loo sii daayay haweenaydii kaba dambeysay daaha dabadiisana ka maamuleysay in la dilo Najma Cabdilaahi Michael. haddaba hooyada dhashay Najma Cabdilaahi Michael oo goobjoog ahayd ayaa ka waramaysa qisada dilka iyo qaabka gabadheeda loo dilay iyo sida haweenaydani ay u soo maleegtay shirqoolka lagu dilay gabadheeda, iyo weliba ninka sii daayay ee ka sii daayay xarunta CID-da ahna nin jooga sarkaal sarena ka ah xarunta CID-da. waa kan hooyada oo ka hadlaysa mudaharaadkii maanta ay ka dhigeen xarunta CID-da ee ku taalla magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. waxaan dareemay baaskooladuna markaas waxaan gartay maskaxdeeda aan ku masaxay inuu ninka dilay Najma. waan isla in badan baan saysanay wixii soo naxo in naxariista oo ma kala furfuro waan waayna yaro dhalay baa gurigaan soo taagay ummadii bulshada meesha way ka buuxday. waxaa jooga ciidanka asluubta, waxaa jooga ciidan fara badan oo maqaaxiyan ku qayla. qof quray caawiyo waan waaye oo yiraahdo ka soo guriga macallin gacan ku dhigida ku jira naxariis darro ayaan bartaa ka arkay. waanu sanaabay Allah ii qabtay naxariista dadku inta ka fogaatay maan moodaynin. kadib isaga guriga ka soo baxay oo cumaamad soo qaatay, qof habiis ka soo dhigay dhaxdan ku dhago waxaan ku saalax bulaalo ma gurigaagii oo ninka gacan ku dhigla ku jiraad ka soo baxday. waxaan dareemay baaskooladuna markaas waxaan gartay maskaxdeeda aan ku masaxay inuu ninka dilay Najma. waan isla in badan baan saysanay wixii soo naxo in naxariista oo ma kala furfuro waan waayna yaro dhalay baa wuxuu dhaabuu weey dhinac taagna wiilaqay wuxuu dhaabuu walayn aan ku raacin inanteedu dil qarsoon bay ku dhimatay. gabadha walaashii ayaa naga nacbayd oo xoog xurufina dhaxta oo الله رب سبحانه وتعالى سلاد يد marka ka soo baxay gurigeeda galoon oo dhacafisi saamax walaal waxaan ka haysta ma garanaye ilaahay weyna waaxid ka baan kaaga maganahay baan oran jiray ilaahay baan kaga maganahay
iyadaana najmo shilka qarsoon u dhigtay daaqada marka gawriga ka soo dhaqaaqay markuu soo taagay inantu waxay tiri inantii meesha sii taagnay 30 mirir baan taagnaa bay tiri wixii soo baxay maan arag bay tiri 30 ka mirir taagnaa wixii soo baxay maan arag markuu gaariga najmiisa soo taago ninku soo baxay bay tiri markaasuu soo baxay nasmi dil qarsoon ee xaali bulaale ka dambeysay ayay ku dhimatay had anigu waxaan ka hoostaagnay kitaabka jaamacada dawladda Soomaaliland waad qabatay ilaa intee baad eryeynaysaa waan ka daba orday waxa la yiraahdaa ku dula ninku uu hubaysan yahay dadku way igaga baxeen dhowr qof bay daba yaacay caruur waxaan idhi wallahi hadduu idilayo najmaan raaci kaama hadho wallahi kaama hadhay baan ku ooyay wallahi kaama hadho waan isiriyay kadib laba inaan boolis ay inaan jaarkayga boolis dalabtay oo inantaas ay caawiso boolis dalabtay inan kalena waxay la oraday qof hooyo dhibaato ku dhacday waa dareemi kartaan qof iska socdaan laakiin muuqisa dadku arkeen laakiin caaga baan iska haanugo inan baan ku boolis dalba inan bay gargaartay booliskii bay dalabtay inan kala yarina way soo oraday inantii cid qaadaba la leeyahay bay la oraday way soo dajisay way la oraday dhakhtarka labada qof baa gargaar ka helay waan daba orday waxa la doonay macna inuu iga baxsado oo dad badan ku caawiyeen inuu baxsado laakiin tii alla meesha qornayd ka joognin ku hubaysay baa la guudi waxaan kama hadayo najmaan ka daba dhinto kama hadayo wallahi kama hadaba ku booyay wallahi kama hado marka dawladda Soomaaliland waxaan uga maganahay marka sidee ku qabateen waxaan lagu qabtay laba nin oo boolis ayaa ka soo orday inaan hablihii yaacay tagayeen ciidanku soo dalbay ma garanaye oo askarta dhakhtarka labadii baan ku waa ka sii orday waxay la hadleen ciidanka dabdamiska soo baxay bay dhahdeen gacan ku dhiig la idigu soo socday ka hor yimaada sidaas lagu hor yimi laba booliska xaajadiina anagu isaga wali si daba ordaynay bay booliska xaajadiina na soo galeen kadib labada ciidan dhexdooda buu galay sidaas aanu lagu qabtay waan gartay hadda hawshu way taala waxa heladoo dhinaca eedaysanaha idiga ma jiraan kana waa bareerka ku fikiraya guryaha dawladda maanta hooyo masuuba ku dhacday oo balaayo ku dhacday kolba guriga intay u soo dirtaan nin sameeyo bahalkiya waxaan wax dhisayeedo nijaar ah intay u soo dirtaan oo guriga noo samee ciidanka amniga booliska maanta inay xaalib waa la qabtay way timiyada hurdadoona shantii subaxnimo meedkeegu yaalo hooyo xaaladeed waa dareemaysaa faalma xaaladu waa dareemaysaa faalmadu waa dareemaysaa intay soo xidhatay surwaal markii booliska ku maxaad ka doonaysaa guriga hurdaan u soo doontay anigu marka waxaan u arkaa qof liminteedii gaadhay marka booliska qabtay gacantay ku dhigeen waxa la sheegay inuu booliska hadana gacantii markay qabteen ee ninka taliyaha la hadlay ku soo qabtay waa gabadha la rabay dambiga ka dambeysay ee la geysay ay dhiday inuu ninka si ay dhida jooga dumaashigeed yahay waa la sheegay hooyo inuu sii daayay waayo dambiilo qof lagu soo eedeeyay xaq baan ka hadlaya xukuumadan ka kitaabka jaamacada baan ka hoosaagay qof lagu eedeynayo sidee oo si fudud oo intuu iska yimi loo sii daayay waa aniga way wax xaq daro عدالة هلو ساكي دت صادرين عدالة رايدو سوى عدالة حكومة ما حتقول باقيها احنا باقينا عدالة أنا حبيبي شفت دعي واحد دور ما سمين كرنيها لكن إلهي بان كم مقن قلي السميين إننا نانو سميو إلهي هو إلا واحد كابان كم مقن قلي وحن دونا إن العدالة هلو أن دولتي إذا كفر حسن هاي يحكمون دي حق صار في عدالة هلو نسمع عدالة لا يهشو عدالة لا يهشو كاسن إلا إذا كبسوا حفلية تسوى لله يور باهدة عدالة ليش أنا تقعد عدالة ليش أنا تقعد halkan hadda aan taaganahay waa halkii habeennimadii xalay ahayd uu dilku ka dhacay magaalada Hargeysa waa agagaarka cisbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa halkan waxa degan gurigan iga dambeeya ninkii markaasi isagu dilka geystay oo ahaa markaasi garsoore sidoo kalena askari markaasi ahaa habeennimadii xalay ahayd waxa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland lagu dilay Najma Cabdilaahi oo ahayd gabadh dhalinyaro aroosad cusub oo dhawaan meherkeedu dhacay maalmaha ciida kadibna loo balansanaa inay sayigeeda la aqal gasho Najma waxay ahayd shumac ilays badan oo xalay qadarka Alle la kulmay halkaasina nolosheedu ku soo idlaatay Najma waxay sidoo kale ahayd shaqaale dawladeed oo ka tirsan wasaaradda beeraha ee Soomaaliland telefishinka Horyaal oo tagay goobtu dhibtu ka dhacday waxaan la kulmay ehelka Najma iyo goobjoogayaal indhahayga waxaan ku soo arkay tiiraanyada iyo murugada ka muuqata waalidka iyo walaalaha la dhashay Najma si gaar ah hooyada dhashay marxuumadda garbaha ayaa la hayay oo mabay socon kareenin iskaba daahadale alla naxariistii jannaha ka waraabiyo Najma Cabdilaahi
dilaaga nolosha dhaafiye najima oo magaciisa koowaad laygu sheegay saalax waxa uu ahaa askari iyo garsoore ka tirsan maxkamadda ciidanka ee somalilan kadib markii uu dilka geystay saalax waxa uu u firdhaday oo isu dhiibay xarunta ciidanka dubdamiska oo bari quman kaga beegan halka uu dilku ka dhacay iyagoo markii dambena ay la wareegeen ciidamada booliska oo hadda gacantooda uu ku jiro mid ka mid ah goobjoogayaashii ayaa ila jooga magacaago saddexaan walaal cabdinaasir xadan ismaan cabdinaasir bal waxaad shacabka la wadaagtaa sidee wax u dhaceen waxay u dhaceen labada baabuur bartanay is ag taagnaayeen iminka halkan ay taagtaagannahay maqaaxida yar baan ka soo kaco xaggan aan u soo socday labada baabuur waan dhaafay iyagoo isbarbar taagan kabacdi waan soo noqday markaan ag maraayo ayaa xabadi dhacday xabadda olaalkaygaan oo arkaya ayaan xabadda olaalkayga waxaan agteeda meel ka durugsan inay ahayd xabaddii aan isleeyahay baldhaqa meesha tahay ee iska cabir unbaa arkay nin barbar taagan oo qori haysta dabeetana iyo baabuurkii xabadda inanta ku dhiftay uu ag taagan yahay dabeetana qorigiina saa kusii leeyahay afkiisa dabeetana gurigiisii ciyaal baa ka soo baxay ninkii wax dilay ciyaalkiisii baa qayliyey gurigay galeen dabeetana nin kalena gaadhigii inantii dhimatay gaadhigii ayuu saa u eego madaxa qabsada soo carar adigu halkaa taagneed markaa waan ag taagnaaba waa marka xabadda dhacaysay toos baad u arkaysay waan arkayay xabadda ololkeegan arkayay ee markaa ninka maan arkayn kabacdina waxaan arkay ninkay barbar taagan iyo gaadhigii iyo inantii uu dilay wixii wada ag taagana dabeetana saasay sheekadu ahayd cabdinaasir bal ka waran xaaladda markaa uu ninku dilay miyay saaf dhaafeen ma hadal baad maqlaysay see waxu dhaceen mise adigu wuxun baad arkaysun xabadduun baan arkayay wax horoo ka dhexeeyeyna maan maqal waa adigu ninku nin xanuunsado khakaaray ay ahayd sheekadii sidaan ognahay se in maskaxiisa la baadhay ahayd oo wax loo ogaado taana adigu way u dhici weyda xagga alle wax walba ka dhaceen saasay ahayd dabcan cisbitaalka iyo caafimaadka markaa bal caddayn doona sida markaa caafimaadkiisa adhow marka la baadho oo xaqiijin doona taas oo shacabka lama wadaagi karno caddayn uma hayno laakiin bal ka waran xaaladda markaad adigu arkaysay xaaladdaasi xaalad cakiran bay ahayd dad meesha iska taagtaaganoo dee oo sheekaysanayo dee xabad lagu dhiftay oo markii horena aan sii dhaafay dee iyagoo wada sheekaysanayo caadiya baabuur isbarbar taagantay markaan dambana aan arkay wixii oo horteeda ku dhacay dee iyo ninkii dilay wixii oo saag taagan iyo inantii la yidhi way dhimatay xaalad waad garan kartay wixii aad taagantay mushkiladu intii laagta waad cabiri kartaa wax culus weeyaan dee iyo farataaga dee mase caqliga biniaadanka dee aad u raacayso adu waxaad ka mid tahay dadka xaafaddan degan baa ka mid ah aad baad u mahadsan tahay adeer waxay u dhaceen shan gurigan habaryartii beeninta joogtay ay ku soo iideen deetana guriga markay galabnimadii carruurtii lasoo qaaday laba gaadhi baa carruurtayda soo kala qaaday ciyaalkaygu waa 4 bay ahaayeen inagu 4 bay nambaa ka dhawtay 13 kale ayaa bombay soo qaadeen oo halkan yimid guriga ku soo iideen habaryartii haye markaa guriga markay iideen galabnimadii bay soo noqdeen laba gaadhi baa soo kala qaadayey gaadhigii hore gaadhi dhaweeyaaba dalbadeen uu soo qaaday carruurtii inta kale qaybtii hadhay ayay inantuna soo qaadaysay markaa gaadhi alaab u sidaa inanta u yimid oo alaab siinayey waddada ku siinayey ninkana guriga kaga soo baxay markaa xaafadaha kasoo horjeeda ah deetana wuxuu guri ka dhaqaaq meesha sida laygu yidhi deetana wuu dhaafay gaadhigii alaabkan ka qaadanay ama ku tiri wuu dhaafay deetana ugu soo noqday haddana qorigii guriga kala soo baxay deetana inantoo muraayaddu dallacantaybu muraayadda uga soo dhexdhifiyey xabadda halkaa madaxay kaga dhacday ma garatay waan gartay marka sababta uu dilay maxay tahay wax alla salo badheed ah aan ahayn uu dilay annagu ma garanayno wuu kasi badheed buu dilay ka dhaqaaq meesha ayuu ku yidhi waxaa jira muuqaal aan daawanay oo isagana muujinayay in aad leedahay askari buu ahaa ninkan wuxuuna u dilay hiilo uu u hiilinayo walaashii arrintaa maxaa ka jiro arrintaasina way jirtaa walaashii isaga iyo waxa wada hadlay inanta deetana oo ku tiri iyaduna waxaa ku tiri sidaas gurigan habaryarteeday iska soo horjeedaan ka dhaqaaq bay ku tiri iyaduna meesha gaadhiga mar dambe ma dhigi kartid bay ku tiri iyaduna haye arrintu sidaasay ahayd maalinta wiig bil ka horna maalin xaafadda soo booqatay waxaa ku tiri ma dhigi kartid guriga hortiisa gaadhiga oo maalintaana waa la kala kaxeeyo buuq bay ku furtay ma garanaysaa marka labadaa arrintaasina way jirtaa dee waa walaashii waa loo aanayn karaa laakiin dee kas buu horta u dilay dee maqdar isna waa qiraal markhaatiyadiina waa inuu badheer u dilay inanta ku yidhi ka dhaqaaq waddada waa wadda bartankeed buu yidhi ka dhaqaaqo
wadada dhakhtar ka timaadee maxkamadda qabata. waan gartay marka adiga muuqaalkaaga waxaa ka muuqday inaad leedahay ninkan waa askari arrintaa ma inoo xaqiijin kartaa ninku waa askari sarkaala weeyaan oo gaashaanle sare sarkaal laygu sheegay inkastoo beetadiisa aan arag waa gaashaanle laygu yidhi gaashaanle ciidanka wuxuu ka tirsan yahay maxkamadda ciidanka qaranka looyar buu ka haba laygu yidhi arrintiis waa sidaa wuu xidhan yahay imika si ay dhidu ku jiraan marka najmo imse jir ayay ahayd najmo waxay dhalatay 2000 ayay dhalatay waxaana u shaqayn jirtay wasaaradda beeraha jumhuuriyadda somaliland bay ahaa xoghayn bay ka ahayd xafiiska wasaaradda beeraha qaybta beeraha agaasimaha beeraha iyo xoghayn lahayd waaxda beeraha bil ka horna aroos bay ahayd nin baa guursaday aroos bay ku jirtay haddii sabab soo qalgashay bishan imika rabadaan bay soo laabatay rabadaan 10 shamarkaasanta bay soo laabatay marka haatan waa la aasay lama aasin waxay imika ku jirtaa dhakhtarka qolka meydkay ku jirtaa waxaan ka codsanayaa in ma garanaysaa shareecada madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland waxaan ka codsanayaa inuu sharciga waafajiyo uu sharciga si waafaqsan ninkaa loogu guto sharciga loogu gudo taliya ciidanka qarankana waan u mahadnaqayaa taranka ciidanka bileyska isaguna si fiican bay hawshaa u gudeen iyo qolada amniga iyo waxaan u mahadnaqayaa ciidanka baarista oo iyaguna si fiican u baaraya taliyahooda ayaan u mahadnaqayaa insha allah hawshana si fiican bay wadaan insha allah iyagana waxaan ka rajaynayaa insha allah inay cadaalad ay inantaa waafajiyaan